maalmo yar kadib xulka qaranka Soomaaliya ayaa ciyaari doona kulanka koowaad ee isreebka hordhaca ah ee koobka qaramada qaaradda Afrika sanadda 2023. Haddaba maxaad ka taqaanaa xogaha gaarka ah ee ku saabsan xulka qaranka Soomaaliya? Goorma ayay ciyaareen ciyaartoodii ugu horeysay? Yaa ah goolaliyaha ugu sarreeya qaranka? Yaa saftay kulamada ugu badan xulka lagu naanayso Ocean Stars? Markii ugu horeysay oo qaranka Soomaaliya uu ciyaaro waxay ahayd sanadii 1958. ciyaaryahan Cabdicasiis Maxamed Cali Hoomey ayaa ah goolaliyaha ugu sarreeya Ocean Stars waxaana uu dhaliyay 13 gool intii uu xirnaa maaliyadda qaranka. Dhinaca kale, Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Guduudow ayaa ah xiddiga ugu safashada badan qaranka Soomaaliya waxaana ku xigay Yuusuf Cali Nuur Yuucali halka kaalin saddexaad uu soo galay Cabdiweli Maxamuud Maxamed Cabdi John. haddaba ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee ku tababaranaya Tanzania yaad is leedahay ugu safasho badan yahay ama ugu gool badan yahay?